السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada dowladda Mareykanka dib ayaa loo furay caawo kadib markii 43 maalmood ay xirnayd waa muddadii ugu dheereyd ee taariikhda dowladda Mareykanka shaqadeeda ay hakad ku timaado sanadihii 2018 dhamaadkiisii iyo horaantii sanadkii 2019 xilligaas oo Trump afartiisii oo wadanka madaxweynaha ka ahaa ayaa 35 maalmood ay xirnayd sanadka waxaan ogeyn isniintii in sharcigii uu meel mariyay dowladda ilaa iyo 30 bisha January ee sanadka soo socda ee 2026 ay ku sii shaqeynayso ku dhawaad 2 bilood iyo bar shaqaalihii dowladda dib loo soo celinayay mushaarkoodii la siinayay dimuqraadiyiinta dalabkoodii ahaa in Obamacare dadka uusan ku qaaliyoobin marka uu bisha December ay dhamaato January horaanteeda iyagoo dalabkoodii aan helin waa kuwii 8 xubnood oo dimuqraadiyiina in Republicanka ku raacay aqalka sanadka ee sharcigaasi la meel mariyo aqalka wakiilada ayaa maanta ayaa shalay dib u soo laabtay oo Arbaca ahayd waxaana ay caawa ansaxiyeen in sharcigii dowladda dib loogu furayay 222 xubnood ayaa u codeysay 209 waa ay diideen 206 xubnood oo Republican ayaa waxa ku raacay 6 xubnood oo dimuqraadiyiina in sharcigaasi la ansixiyo dowladana dib loo furo 2 xubnood oo Republican ayaa diiday mid Kentucky laga soo doorto iyo mid Florida laga soo doorto 207 xubnood oo dimuqraadiyiina waa ay diideen 2 xubnoodna waa ay ka aamuseen sharcigii isla markiiba maadaama Congress-ka aqalka cad aysan kala fogeyn madaxweyne Trump ayaa aqalka cad loo geeyay oo sugayay isla markiina waa uu saxiixay dowladdiina dib ayaa loo furay laga bilaabo maanta oo Khamiisana dowladdii shaqadeedii dib ayay ugu soo laabatay oo dib ayay u bilaabaysaa maadaama muddo 43 maalmood ay xirneed madaxweyne Trump ka hor intii uusan sharciga saxiixin dimuqraadiyiinta ayuu dusha ka saaray mas'uuliyadda xirnaashaha dowladda waxaana uu sheegay in dowladdu ay qasaartay lacag 1.5 trilyan ah waxaana uu yiri maadaama doorashooyinkii xilliga dhexe ay soo socdaan si looga fogaado hadda 2 bilood iyo bar kadib haddana dowladdu inay dib u xiranto xisbiga Republicanku gaar ahaan aqalka sanadka waa in filibusterka ay meesha ka saaraan sharciga filibusterka macnihiisu wuxuu yahay xisbiga aqlabiyadda aqalka sanadka leh in simple majority cod aqlabiyadeed oo 51 sharciyada ay ku meel mari karaan haddii aysan 60 xubnood aqlabiyadda aysan ku haynin sharciyada qaar marka waxay u baahan yihiin sida hadda sharciga miisaaniyadda dowladda oo kale inay taageero ka helaan xisbiga dimuqraadiga maadaama 60 cod loo baahan yahay in lagu meel mariyo iyaguna 53 xubnood ayay haystaan marka Trump wuxuu yiri si arrintaasi looga fogaado waa in sharcigaasi filibusterku ay sanadka meesha ka saaraan laakiin sanadku iyaguna waxa ay ka baqayaan in haddii meesha ay ka saaraan doorashooyinka xilliga dhexe sharcigaasi filibusterka doorashooyinka xilliga dhexana looga guuleysto in dimuqraadiyiintu markaasi sharcigii ay rabaan ay meel marsan karaan maadaama Republicanku wadadaasi ay horay u faleen marka Trump waa uu saxiixay sharciga 4 saac iyo 24 daqiiqo markeeda sharcigaasi qalinka ku duugay dowladdiina dib ayaa loo furay oo shaqadeeda laga bilaabo maanta oo Khamiisa si rasmi ah ay u bilaabaysaa 43 maalmood oo xirneed kadib ashadaasi ayaana muddo ku dhawaad bil iyo bar ah oo qalalaaso siyaasadeed wadanka uu ka taagnaa isla markaana shaqada dowladda Mareykanka ee hakad ku jirtay ay shaqadii dowladda dib loo bilaabaya marka arrimahaasi oo faahfaahsan iyo arrintii Epstein file-ka waxyaabo ka soo kordhay oo laga yaabo Congress-ku toddobaadka soo socda inay u codeeyaan email ay soo bandhigeen guddiga la xisaabtanka dowladda gaar ahaan dimuqraadiyiinta oo aqalka wakiilada ku jira ayaan idin la wadaagi doonaa haddii alla idmo warka aan kan ku xiga oo aan soo gelin doono insha Allah warbixinadaasi iyo warbixino kale stay tuned aad iyo aad u mahadsantiin